بعدي باقنا كسو صار حفيز كيسي مدى وحكو سليسي هاي باقنا ندرينو دقالك كسعودة أو كدعاية قبل كهيران وحلا متقال ما يوعنا قرنين شعبكي iyo ummadii la barakiciyay dibna lagu suubiyay dagaalkaasna waxa la wuxuu ku wajahan yahay aanu garanayn aad buu noo dhibayaa dagaalkaasu waa dadkayagii waana dalkayagii marka waxaanu baaq ugu diraynaa inay dagaalka joojiyaan biduuni sabab oo xabada dhigaan dagaalkana ay joojiyaan iyagoo u turaya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan iyadoo gobolka Hiiraan uu yahay gobolka isugu xira gobolada Koonfureed iyo gobolada Puntland marka baaqaan isugu nimi maanta xafiiska isimadu wuxuu ku saleysan yahay in dagaalka la joojiyo xabada la dhigo sababtoo ah dad muslimiin ah ayaynu nahay laba diimood ku kala dagaalamayno oo boqolkiiba Soomaaliya waa muslim dad waxaynu nahay walaala dad waxaynu nahay isku af Soomaaliya oo isku luqad ku hadlo aan luqada kala gedisan sida adduunyada kale aan ahayn waxaanu nahay dad isku diina dad isku magaca dad isku Soomaaliya oo calan Soomaaliyeed ka dhaxayo marka dagaalkaas aad buu noo dhibayaa gobolka Hiiraan ka socda waxaan ugu baaqaynaa dagaalka inay si biduuni sabab ku joojiyaan shacabka dadka Soomaaliyeedna loo turo barakaca iyo dhibta lagu suubinayo iyo qaxa iyo dadka biduuni sabab inta la leynayo hooyooyinka awlaad la'aanta dhacaya hooyooyinka asayda qaadayo nimankoodii iyo xilahoodii ku waayaya ciyaalka agoomaynayo arinta in loo naxo ayaan ugu baaqaynaa ururada isku haya gobolada oo nin walba magac gaar ah uu la baxayo waxaan leenahay dagaalka joojiya ummadana u tura aad baan uga xunnahay aad buu noo dhibaya talabaysa dagaalka isaguna gooskooska iyo qaraxyada ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyagana waxaan ugu baaqaynaa walaalaha iyaga dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan oo xabada ay daayaan sababtoo ah Muqdisho 20 sano lagu dagaalamay waana caasimadii Soomaaliya 20 sano ay burbursan guriyihii baa la burburiyay dadkii baa la barakiciyay dadkii baa la laayay waxgaradkii baa la laayay odayaashii baa la laayay culumudiinkii baa la laayay waxgaradkii siyaasiyiintii baa la laayay xildhibaanadii baa la laayay ardaydii wax baranaysay baa xataa la qarxiyay iyo golihii wasiirada wadadku xagee ku socdaan haddii inagu islayno soo dadkeeni baabi'i maayo haddii waxgaradka layno soo waxaana waxba aqoon dalka u soo hari maayaan marka waxaan leeyahay bulba 20 sano dagaalameyn oo isbaabiinay oo reer hebel iyo reer kale u dagaalameyn hadda reer hebel waaba dhamaatay oo nin walba diin iyo aayad buu soo daleelinaya war ilaahay laga cabsado diinta lagu dhaqmo diintu ma jireen in nin walaalkeeya oo muslima oo shahaadanaya oo in adeerkeeya inaan dilo diinana ma jireen in la isqarxiyo marka dhibaha ka dhacaya dadkeeni waad ogtihiin baduu ku dhamaaday Yemen buu ku dhamaaday Liibiya ku dhamaaday meel walba waa daadsan yahay haddeer waxaan maqlayaa Yemen dadkii waa taxiilaysaayo Somaliland iyo Puntland iyo Koonfur iyo waxay u kala saarsaareen dhibta dadkeena inaga u geysanay inaga istagaalay inaga hurinay qarankii Soomaaliya inaga burburinay ilaa iminkana inaga Soomaaliya qarannimo u diiday marka aynu isu tagno dadka xabada laga joojiyo dhibta la joojiyo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba hadaan nahay simada Puntland in dagaalka la joojiyo wada hadalna wax lagu dhameeyo xakunku dad badan u qaybsami maaye kursiga nin baa ku fariisanaaye ninka bal in la shaqeeyo inta la doorto ayaan ugu baaqaynaa waana dhibayaa gobolada Koonfureed waxa ka dhacaya waa gobolada yadii dadkaygii baa ku nool waa caasimadayadii waa madaxayagii qofka hadduu madaxa ka xanuunsado ma socon karo uu wareerayaa ma kici karo haddii lagu cayaaro oo la baabi'iyo waa waxa aad u dhib badan haddeer waxaan maqlayay meel lagu daweeyo dadka oo caasimadda ku taala garoonka weyn ee Aadacadda International Airport wax yar u dhow oo dadka xanuunsanay ku jiibay qabay iyo ku curyaanay iyo dadka fuqirada aan awoodi karin dawooyinka in niman ay caawiyeen oo siiyeen Amazon in la qarxiyay oo dad badan oo Soomaaliya ku dhimatay marka waa dhib badan
dadka la dilaya waa dadkeennii kuwa